caasimadda Puntland ee Garowe waxaa si weyn looga dareemayaa qabanqaabada doorashada madaxtinimada iyo midda guddoonka golaha wakiilada ee dhacaysa horaanta bisha Janaayo ee sanadka soo socda. waxaana magaalada soo galay dad ka yimid magaalooyinka kale ee Puntland iyo qaybo ka mid ah dalka. wadooyinka muhiimka ah ee magaalada iyo goobaha la isugu yimaado ayaana laga dareemayaa saxmadda iyo mashquulka soo kordhay ee howlaha doorashada la xiriira. waxaana arrintan barbar socda howlgallo si joogto ah ay u wadaan ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa loo xilsaaray adkeynta ammaanka magaalada ee inta lagu jiro doorashada, kuwaas oo ay ku baarayaan gaadiidka kala duwan. qaar ka mid ah shacabka ku sugan caasimadda oo la hadlay Puntland TV ayaa sharaxay farqiga u dhexeeya doorashadan iyo kuwii ka horreeyay ee lagu qabtay magaaladan Garowe. labadan doorashada waxaan u maleynayaa in farqi aad iyo aad u weyn u dhaxeeyo. farqigaas oo ah marka koowaad tirada musharaxiinta waa tiro aad iyo aad farqi ugu dhaxeeyo. xilligaas waxaa tartamayay musharaxiin ka yar 15 madaxweyne ayaa raadinaya xilka, hadda oo ay ka badan yihiin 30 iyo dhowr ayaa xilka raadinaya madaxtooyo. musharaxiinta ayaa kaambeynkoodu mid uu ka duwan yahay kii ka horeeto. waxa ay wataan dad aad u badan oo kaambeynaris ah, waxay wataan dhalinyaro badan, waxay wataan gaadiid badan oo ku xardhan yahay sawiradoodu. waxaa jira musharaxiinta qaar waxa waaye ku cusub saaxadda siyaasadda, qaar waxaa jira ku cusub Puntland imaanshaheeda oo ayagu laftirkooda doorashada u yeelaya cusbo siyaada ah. marka waxaan u arkaa inuu farqigu aad u kala duwan yahay, tan intaa mid ka xamaasad badan midii horeeto. saxmadda iyo mashquulka magaaladu waa fara badan tahay, wax la soo koobi kara maaha, boqolkiiba boqol weeye. waa kulankii ugu horreeyey ee wada yeesheen islamarkaana booqasho oo ku yimaado wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya safiirka cusub ee dowladda Turkiga dhawaan u soo magacaabay dalkeena Soomaaliya. waxaana ku soo dhaweeyay wasiir Daahir Maxamuud Geelle iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradda. kulanka oo ku qabsoomay xafiiska wasiirka ayay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka warbaahinta labada dowladood, iyadoo maamulka wasaaraddu ay sheegeen in warbaahinta dowladda ay door muuqda ku leedahay tabinta waxqabadka dowladda Turkiga ee Soomaaliya, iyadoo sidoo kale safiirka lagu soo wareejiyay qaybta TV-ga qaranka oo dhawaan dibadhis lagu sameeyay. safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya Master Maxamed Yilmaz ayaa ugu mahad celiyay sida diiran ee loo soo dhaweeyay. waxa uu sheegay in ka safaarad ahaan ay kaalin ka qaadan doonaan sidii loo horumarin lahaa warbaahinta dowladda. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray 2018 waxaan si gooniya ugu eegaynaa 4 qaaradood ee Afrika, Yurub, Asia iyo Waqooyiga Ameerika. haddii aynu ku hormarno qaaradda Afrika, dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Zimbabwe kadib iscasilaadii madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Gabriel Mugabe oo hogaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980. 30 bishii Julaay ee sanadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud, kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka. tartanka madaxtinimo waxaa wada galay Emerson Mnangagwa oo ka tirsan xisbiga ZANU-PF oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore Robert Mugabe, iyo Nelson Chamisa oo hogaaminayay isbahaysi xisbiyada mucaaradku samaysteen oo lagu magacaabo MDC. doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga ZANU-PF Emerson Mnangagwa ku guulaystay 50.8% codadkii dadka, halka Nelson Chamisana uu helay 44.3%, taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo. xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan, iyada oo bilihii doorashada ka horreeyay ay dalkaasi ka jireen qulqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka faramaroojiyeen madaxweynihii hore Robert Mugabe, islamarkaana fududeeyeen doorashadii keentay in Emerson Mnangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii Julaay ee sanadkan. haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda Afrika, 2 bishii Abriil ee sanadkan waxaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya loo dhaariyay Abiy Ahmed Cali. doorashada Abiy ayaa timid kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Haile Mariam Desalegn, kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda Oromadu. muddo yar kadib markii Abiy la magacaabay waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan.
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xidhiiray dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. waxa uu oggolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray sida tan isgaarsiinta iyo duulista. dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tegay dalalka Sacuudi Carabiya, Masar, Jabuuti iyo Soomaaliya. hase yeeshee booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tegay dalka Eritrea oo uu kala dhexeeyay muran dhinaca xuduudda ah oo 10 sano soo taagnaa. maalmihii u horreeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka Badame oo labada dal ay isku haysteen, dagaal loo galayna ay 100 qof labada dhinac kaga dhinteen. wararka kale ee ugu waaweyn qaaradda Afrikana waxaa ka mid ah doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyada oo madaxweyne Joseph Kabila oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2001 uu xilkaasi ka degay. dalka Suudaan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca maciishada ah, haddase isku bedela kuwa siyaasadeed. dadka reer Suudaan oo dibadbaxooda bilaabay dhowr iyo 10 maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir uu ka dego hoggaanka dalka oo uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 89. haddii aynu jaleecno dhinaca qaaradda Yurub, qodobka ugu weynay waa in dalalka xubnaha ka midowga Yurub iyo dalka Britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha March ee sanadka soo socda. go'aanka ka bixidda waxaa afti dadweyne ku oggolaaday dadka reer Britain bishii Juun ee sanadkii 2016. kadib bisha March, heshiiska qabyo qoraalka ay labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado UK-na ay u hoggaansanto sharciyada midowga Yurub ilaa inta laga gaadhayo bisha Diseembar ee sanadka 2020. haddii aynu u gudubno dhinacaas iyo qaaradda Asia, dalalka Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ay sanadkan ka dhaceen. 8 bishii May ee sanadkan dalka Maraykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee dalka Iiraan ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka oo lagu daray dalka Jarmalka. ka bixidaas kadib waxa uu Maraykanku dib u soo celiyay cunaqabateyntii saarnayd dalkaasi Iiraan. dalalka kale qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan tallaabadaas Maraykanka. dowladda Iiraanna aad ayay uga cabatay cunaqabateynta lagu soo celiyey. dalka Sacuudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhex muuqday waxyaabihii sanadka dhacay kadib markii uu qirtay in 2 bishii Oktoobar ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamaal Khashoggi oo ahaa warfidiyeen ka tirsanaa wargeyska The Washington Post. dalkan Maraykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa. mas-uuliyadda dilkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in xubno ka tirsan dowladda oo keligood go'aan gaara ee falkaasi ka dambeeyeen. madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaagay dowladda Sacuudiga, inkastoo Koongareeska Maraykanku uu cambaareeyay islamarkaana uu sheegay in Maraykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro. qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaaradda Asia ee sanadkan dhammaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhex maray. 12 bishii Juun ee sanadkan ayaa labada hogaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore. kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee dhex mara laba hogaamiye oo labada dal kala matala. ciidamada ammaanka ayaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxay ku qabteen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo rag la socday. 3 ruux ayaa la sheegay in ciidamadu ay xabsiga dhigeen. wariyahana Liibaan Nuur Xasan ayaa faahfaahinaya warkan. wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ammaanka howlgal ay ka fuliyeen magaaladaasi lagu qabtay gaari walxaha qarxa lagu soo xiray, iyadoo saraakiisha booliiska ee magaaladaasi ay sheegeen in lala damacsanaa in weeraro looga fuliyo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. gaariga la qabtay magaciisu waa nooca ay Soomaalidu u taqaano caasiga ama hoomeyga, waxaana howlgalka lagu qabtay oo ka dhacay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo oo lagu magacaabo Idaado Yarey. sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa waxay gacanta ku dhigeen 3 nin oo la aaminsan yahay inay yihiin raggii gaarigaasi qaraxyada ku rakibay. gaarigii iyo raggiiba ayaa lagu soo waramayaa in lagu hayo saldhigga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana lagu wadaa baaritaano halka ay la damacsanaayeen iyo waxa qorshahoodu u ahaa, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha booliiska ee maamulka Koonfur Galbeed. ciidamada booliiska ee magaalada Baydhabo ayaa waxay kordhiyeen baaritaanada ay ka sameynayaan xaafadaha magaaladaasi.